buuggan Atomic Habits buuggan waa buug aad iyo aad u wanaagsan marka la yiraahdo caadooyinka iyo personal behavior-kii qofka sidoo isku bedeli karo buuggan waxa isleeyahay waa buug aad iyo aad u wanaagsan qofka wax badan uu ka faa'iidi karayo waxaan doonayaa hal qodob oo muhiim ah oo buuggan aan ku arkay inaan la wadaago oo aan isleeyahay idinku wax badan buu idin faa'iideyn kara qodobka oo aad iyo aad soo jiita aniga qodobkaasi wax kala ma ahan waxa weeye buuggan wuxuu aad iyo dadku u dhiirigeliyaa in aadan adigu xooga saarin ama focuska aanad saarin inaad yool ama hadaf ama goal aad degsato tusaale baan siinaya dadka inta badan qof baa wuxuu ku dhahay hadafkaygu waxa weeye in aan waxaas iyo waxaas sameeyo ama inaan barto English oo kale laakiin dhibaatada jirto waxa weeye hadafisku waxay keenaan qofka inay shaqada ay ka niyad jab inay ku ridaan so English ba baranaysa tusaalaan ka soo qaad Englishna barto waxa ku qaadanaysa sanad ama 6 bilood ama 2 sano qof baheerku ka taagan ku xirantay laakiin markasta waqti dheer bay qaadanaysaa kan ugu yar 6 bilood bay ku qaadanaysaa marka hadii hadafka aad degsato oo 6 bilood aan ku barno English tiraho markii maskaxdaada waxay sameynaysaa in ay bilowdo procrastination ee caajis badan iyo dagaal kula gasho marka laga maalinta koowaad ama labada maalin hore inaad xoog saarto inaad course ka qaadato kadibna ka caajisto marka buuggan waxyaabaha uu ku baray waxa kamid wuxuu ku dhahayaa hadafisku muhiim ma way wanaagsan tahay hadaf in English baranaysid 6 bilood kadib laakiin focuskaaga saaran adiga focuskaaga waxa saartaa inaad maalin walba 10 daqiiqo aad luqad English training ku sameeysan maalin walba 10 daqiiqo waliba inaad wax yar ku bilowdo kadib 20 ka dhigto 30 ka dhigto saa ku wado marka muhiimaddu waxa weeye inaad every day training English sameeyso ilaa 6 bilood laga gaarayo laakiin muhiim ma aha inaad ilaa 6 bilood ba English ku baranaya in theory waxa laga yaabaa in wax yar oo maskaxdaada ku adag noqoto laakiin markasta waxa muhiim ah in systemsku ay ka muhiimsan yihiin ahdaafta la degsanayo marka hadii system adag aad samaysato oo maskaxdaada kala dhacaysa in maalin walba ay waqtiga waxa samayso hadafka nooc kasta uu yahay qofka uu gaari doonaa marka waxba aad waqtiga sanad 2 sano waxa arki doontaa adigu halkii taagan oo wax qabanay marka waa qodob aad iyo aad u wanaagsan oo buuggan ka faa'iiday marka adigu xoog waxa saartaa in aad mar walba system samaysato systemka ku dhaqanto instead aad dhigid hadafkaas baan leeyahay oo hadhow niyad ka sii qaadaleed marka ay muuqaalkana ka faa'iiday wixii aragtiyahaada adigana aad isleedahay ku diri kartaa comment inagu soo qor sidoo kale waxa ka codsanaa videoga in like noo saarto asxaabtaan la share garayso assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh